hogaamiyaha xisbiga wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa maanta soo gaaray magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar. Ciidanka booliska ee gobolka Saraar ayaa ka hor istaagay inuu soo booqdo una geeyo dawooyin iyo biyo dadka uu soo dhigtay cudurka shuban biyoodka oo farabas ku haya dadka xoolo dhaqatada ah ee gobolkani Saraar. Sidoo kale ciidankani ayaa waxay ku tiraabayeen amar ayaan qabnaa. Hogaamiyaha xisbiga wadani oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa hadaladiisa ka mid ahaa halkan waa Caynaba aanu joogno dhakhtarkii Caynaba waxaanu ilaa xalay ilaa shalayto la soconay dawooyinka aanu dadka ugu gargaarayno aanu soo qaadnay anagoo xisbiga wadani anagoo soo kaxaynay dad professional dhakhtar ah oo waxa weeye caafimaad anagoo dhigaynay dawooyin yani dadka shubanka ku dhacay ee xanuunsanaya oo anwaac badan leh oo halka yaala sidoo kale biyihii sidoo kale raashinkii sidoo kale waxa weeye duruufaha ay qabaan ka caawinaynay meelo badan aan runtii soo maray waxa nagala kulantay dhakhtarka Caynaba in qoryana lagu qabto askarta taagan idin muuqata ee muuqaalka ka muuqata in qoryana lagu qabto waxa la dawladda tiri yaan la soo gelin iyo soo gelin waa sida iyagu sheegeen afkooda kala haayeen amar baana lagu siiyay inaan la dhigin askartiiba canka tiri in hablihii shaqaaleyntii xaliimay joogtay baa tiri muuqaalada soo duubana dadkoo dhan way arkayaan waxa muuqata dadkii oo yani cadilan oo xanuunsanaya oo jiifa ayaa dawadii aanu sidnay ee mucaawinooyinka ahaa loo diiday oo laga xayiray waxaanu dadka reer Somaliland dadka reer Saraareed gobolka Saraar dhammaan dadka Soomaali jecel u bandhigaynaa in yani sifa afduuba oo aan sax ahayn waxa weeye loogu diiday dadkii jilicsanaa oo ay cunaqabatayn tahay waanu cambaaraynayn dadka jilicsan ee ummadda jilicsan la cambaareeyo ficilkan imka anaga qoryaana lagu qabanaya wuxuu la mid yahay ficilkii waxa weeye maxkamadda ka dhacay ee reer wadani iyagoo maxkamadda jooga madaxdii wadani lagu waxa weeye lagu waxyeelay qaar lagu qabqabtay qaar lagu xidhxidhay qaar waxa weeye lagu garaacay dhakhtarka ugu jiraan qaar hadda jeelka ugu jiraan masaakiinta ee xanuunsanaya ee boqolka qof ee jiifa dhakhtarka boqolaalka gaaraya dhakhtarka jiifa in loo diido laga xayiro waa runtii waa ayaan daro aad u weyn aad baan u cambaaraynayna waxaan leenahay dinna dalka qori kuma qabsan kuma ogin annaga shalay madax ka ahayn madaxweynihii iyo dawladdii kumaanaan ogeyn sidaa haddaanu ahayn wax maanta la gaaray haddaanu ahayn wax dadka buka loo tashaday haddaanu ahayn wax Caynaba u khaasa waxa weeye kumaanaan ogeyn waxaanu leenahay waanu ka soo horjeednaa ummadda yaan la caburinin yaan la cambaaraynin ninkii wax ku taraya oo halkan kaalay haddaydaan u iman oo ummadda u iman oo ay taal ka dhigataan cid kalena yay u iman oo baktiisaan taa macnaheedu waxa weeye anna u iman maayo cid kalena yay u iman dadku ha bakti sidoo kale waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha xisbiga maanta waxa la keenay saraakiisha sare hoggaanka xisbiga wadani hogaaminayo ayaa soo bixiyay daawo dhul badan bay soo mariyeen isbitaalkii ugu weynaa 10 qof shubanka ugu dhimatay ayuu keenay daawo gurmadkii loo keenay oo dadka noocaasa halka waxa isku hortaagay maamulkii gobolka Caynaba dhakhaatiirtii amar siiyeen waxba la gelin meesha meel dadkaas dad loo gurmado ma habuuyid ma hadda loo gurmado dadka buka ee 10 ku dhimanaya ee marba laasayo dad loo gurmado ma waxba yaan loo geyn buu yiri bara saabkii gobolka iyo taliyihii ciidanka markii aan dhakhtarkii keenay aan siiri aan sida amar soo qaado bara saabkii iyo magaranaysayo isuduwi waxay dhaawaan ku qabsanaya caamada inaan qabnay guddiga abaar ku wareej guddiga abaarihi aan siyaha kala wareeganayo dhakhtarka ku wareejina dhakhtarkiiba waa ka carareen dhakhtarkiiba ha soo gelin lagu waa ka carareen gaarigii aan sinday ku sinday ayaan soo gelin isuduwi markaa uu tagay wuxuu yiri inaan baan ku ballaminaya markii dambana waa abaabka wayga furwaa isaguna meesha way ma waxa weeye waa si fakhaldan dad buka oo shubana baan u gurmeen oo aan u soo tabar u soo sameynay oo aan u soo soconay oo aan u nimi oo aan si wixii aad tari kartaan u keena wana la ka qaban waay rasaas baan la ku qabtay wana la handiday waxa weeye askartu waxay taliya qaybta amar ku haysanaa amar baan la siiyay dawadan waanu qabanaynaa waa qabanaynaa annaga awaashi gobolka ah xabadkiin inaan loo diidi karin annaga qaybana loo siinay Soomaaliga tiktok way meen noo sheega وعبد الرحمن فيصل في ملاد تلفزيون كعالمي Bulsho TV مقالة عينبه حرونتو قبل كسرار